حاجة كده اللي واحد waxaan maanta joognaa barakacayaasha Garowe mid ka mid ah iyadoo aan ku daafurayno barnaamijka gurmadka degdega ah oo ay wada wadaan hay'adda Tadaamun iyo xarunta Boqor Salmaan ee gargaarka arrimaha bini'aadanimada waxaan qorshaha u yahay haddii ay baydmo in la daafuro wajiga labaad ee mashruuca gurmadka abaaraha ama dadka abaartu ay saamaysay ee ku nool deegaanada Puntland saad la socoteenba waxaanu soo wadnay bilowgii ama bartamihii bishii August fayska labaad ee mashruuca gurmadka abaarta iyadoo bilbirihii March iyo June inta u dhaxaysay aan soo gabagabaynay qaybta koowaad oo ay hay'adda Tadaamun iyo xarunta Boqor Salmaan iska kaashanayeen fulinta mashruucan oo ay ku deeqday boqortooyada Sacuudi Carabiya waxaan u mahadcelinaynaa hoggaanka iyo dadweynaha boqortooyada Sacuudi Carabiya sida walaaltinimada leh islaamnimada leh oo ay walaalaha Soomaaliyeed ee abaartu ay saamaysay ay ugu soo gurmadeen waxaan insha Allah ta'ala fayska labaad qaybta Puntland ay noqon doontaa ilaa 8,000 oo qoys ayaa la gaarsiin doonaa kuwaas oo abaartu ay saamaysay waxaana sidoo kale barbar socon doona biyadhaan haddii ay loo fudin doono dadka meelaha fogfog degan oo abaartu ay saamaysay iyo xoolahoodaba inta laga gaaro waxaan la shaqayn doonaa guddiga gurmadka abaaraha ee dawladda Puntland oo isagu aan wada qorsheyn doono qaybinta iyo agaasinka iyo beegsashada dadka iyagu mudan oo dadka ay abaartu saamaysay ee mudan in la gaarsiiyo deeqdan kooban waxa xaqiiqada deeqdani markii loo fiiriyo baaxadda abaarta dalka ka jirta iyo dhibaatooyinka kala duwan inay noqonayso wax yar balse waxaan ku dadaalaynaa anagoo guddiga kaashanayna sida ugu wanaagsan inaan u maamulno waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale xarunta Boqor Salmaan oo iyadu si joogto ah inta abaartu ay bilaabatayba deeqahan kala duwan ee isugu jira raashinka iyo biyaha waday waxaana sidoo kale aan u mahadcelinaynaa dadweynaha iyo culimada iyo dadka muxsiniinta ee ku hawlan hawsha abaarta talooyinkay soo gudbinayaan iyo ka qayb qaadashadooda waxaan sidoo kale iyadana halkaan uga mahadcelinayaa hay'adda maareynta masiibooyinka ee dowladda federaalka oo iyaduna aanu bilowga mashruucan markuu soo bilowday aan wada shaqaynaynay waxaan rajaynayaa inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala abaarta inaga saaro oo uu roob ina siiyo